waa maxay jacayl? Waa su'aal in badan dadku is weydiiyaan. Qof walbana markii la weydiiyo wuxuu uga jawaabaa sida uu dareenkiisa u sheegayo. Jacaylka marka laga faalloonayo, inta badan xeeladayaashu waxay adeegsadaan erayo macaan oo ka turjumaya waxtarka, dhibaatada, iyo isbedelada jacaylka. Waxaana lagu munansanayn in abwaanada caalamka yihiin kuwa ugu dhow qeexida jacaylka, iyagoo u adeegsanaya suugaanta iyo hal-abuurro kooban, isla markaana qofka dhagaysanaya uu madaxa u lulo. Marka dhagihiisu ay ku soo dhacaan, abwaanadeena Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala gedisan uga hadlay jacaylka. Inta badan dadka jacaylka ka dhexeeya waxa ay hal hays ka dhigtaan heesaha jacaylka ee ka soo baaxda abwaanada Soomaaliyeed, halka ay ka isticmaali lahaayeen weeraro ay iyagu samaysteen. Waayo dhib kasta ama dheef kasta uu jacaylku sababo, horay ayaa abwaan ugu cabbiray suugaantiisa. Oo waxaa tusaale kuu noqonaysa marka adiga aad isweydiiso waxa uu yahay jacayl, miyayse kugu soo dhacay erayadii abwaanka ee ahaa موجي الجحيم موجي الجحيم ومحل موجي الجحيم موجي الجحيم ومحل جوا قرار كل جوا السدود سمرة ومحل جوا قرار كل جوا السدود سمرة. haddii jawaabtaadu sidaa noqoto, sooma rumaysnid in abwaanku haleelay waxa ugu fudud ee lagu tilmaami karo jacayl. Haddaba daawade, haddii aad hayso micno ka duwan ama eray aad ku qeexi karto jacaylka oo ka duwan, waad nala wadaagi kartaa. Mahadsanidin.